الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وحنا كان يدين كسو قدبنا قوامو كسو بحي ولها وسيرة هي جمهورية الصوماليلاند. جمهورية الصوماليلاند iyada oo aaminsan mabaadi'da nabad ku wada noolaanshaha iyo xasiloonida gobolka kana soo horjeeda wax kasta oo wax u dhimi kara nabadda iyo deganaanshaha isla markaana ka soo horjeeda xagjirnimada iyo cid kasta oo taageerta xagjirnimo. Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo isla markaa tixgelinaysa cilaaqaadka taariikhiga ah ee dhaqan, dhaqaale iyo siyaasi ee ka dhexeeya Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wadamada khaliijka. Waxa ay golaha wasiiradu maanta ay taariikhdu tahay 10 bisha 6 Juun 2017 isugu yimaadeen shir aan caadi ahayn kaasi oo gudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Shirka goluhu wasiiradu wuxuu ku saabsanaa khilaafka siyaasi ee ka dhaxeeya dalalka khaliijka iyo mowqifka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka qaadanayso. sidaa darteed waxaa ka soo baxay golaha wasiirada go'aamadan: kow, in Jamhuuriyadda Soomaaliland si buuxda u taageerayso mowqifka iyo aragtida ay ka qaateen dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadku khilaafka siyaasiga ah ee u dhaxeeya iyaga iyo dalka Qatar. laba, in laga bilaabo maanta cid aan ogolaansho ka haysan Jamhuuriyadda Soomaaliland aanay isticmaali karin marina karin hawada Jamhuuriyadda Soomaaliland. saddex, Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u madax bannaan tahay cirkeeda, dhulkeeda iyo baddeeda. Soomaaliya kama taliso mana bixin karto ogolaansho cidii ku isticmaali karto dhulka iyo badda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cirka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waa mahadsantihiin. السلام عليكم. واحد دواء إن لما دي كلام يخليك تسمع استقرب كل ده سلوك وحدود فيها عجيزتي. وطبعا خليك تشوف طبعا الإسلام هو اللي بقى عين الله حاد سياسيا نفسه يدوبه. الإنسان صار خيار من ده تعالى قد كذا. نقولنتي وما رأينا إن الجذب قال لي حنبرنا قالوا قوان كانوا سلنا هاي وسحسنية هاي وإنه كتر شو ما يدنها سومالي. qodobkaas go'aankaas halkan kuma jiro go'aan ah in la saarayo heedaha Imaaraadka ka qaata deeqaha qadar ka qaata kuma jirto. waxaynu ka hadlaynaa un mowqifkii ay ka qaateen khilaafka ka dhaxeeya Sacuudiga iyo Imaaraadku iyo qadar kaas aynu ka hadlaynaa runtii. قادر لكن لا يحتاج السعودية برنامج من الاستثمارات في السعودية إن الملك سومالنا صومته وحنا نروح سومالنا حول سومالنا عندنا أي مشكلة عندك مركز هذا ورمى البلاد وما ملك وإنما ما بقص يعني جينا ما بتجيز ورتدينكم مركز لاهي عيد عن أين أوجران ما ملك كرتو إن كان هذا كتلنا هم الراعيون دستوركين hawada iyo dhulka iyo badda Soomaaliland waxa ka talisay Soomaaliland. cid kastoo maraysaana weyn runtii aynu ogolaasho inay naga hesho. waa runka gacanta waxa ku haya kaaba ku haysa hawadeena iyo hawada Soomaaliyaba
laakiin inagu mowqifkeenaynu jeedinayna mowqifkeenu wuxuu yahay laakiin su-aasha haddaan wax yar ku daro cid walba inkastoo ay kaawa gacanta ku hayso waxa weeye haddii imanka cidi wax ka soo gaadhaan jamhuuriyadda somaliland waxaanu hawadeeda oo aanay cidina ogolaashaana ka haysan waxaanu adduun weynaha u sheegaynaa inay iyagu ka mas-uul yihiin dowladda soomaaliyana aanay bixin karin sida ay ku andacoonayaan aanay cid rugsad ku siin karin inay hawada maxaan ku dhahdaay jamhuuriyadda somaliland ay maraan ay ka taliyaan dhinaca soomaaliya oo qura waxaad sheegtay hore dagaal looga socday gacanka calameed iyo yaman soomaalina way bareedha waxaad sheegtay dhinac baanu nahay ilaalkii rutiintii suuliga hogaaminta xilfadiisu way la safrtay tan iminka waatan waa la safrtay halka dadka qaar waa suudiin kale waa dareenka dadka halka dad olodayoo yaalla wadamada gacanka ama khaliijka soomaalina dhinac ka qaadayso inna mayda qorshaha waxay ku jiraan oo diina ku dhow oo soomaaliya ku jiraana waxaa ka jira al-shabaabiya dad taageersan aysan dad baa lagu laayay kaa bugay saaran yihiin taa maxay ka qorshayntaa halkaa la fiigsanaya wala fiigsanaya horta somaliland marna may odhanin waxaanu taageersannahay maxaan idhahday dad cidda ku dagaalamaysa yaman garabkaasaanu taageersan inaku maynaan odhan cidina inama weydiin inaku waxaynu la gaadhnay heshiis baynu la gaadhnay waddanka imaaraadka ku saabsan maxaan idhahday qaacido airportkii berberaah marka waa kala jaad aan la isku khaldin labada iga raalliho arrinka maxaan idhahdaa daacish iyo al-shabaab iyo weerarkii maanta dhaweyta ka dhacay deegaamo puntland inagu mar kastaba waynu ka soo horjeednaa waanaynu runtii aynu ka xunnahay in dad shiciba la laayo waana ka soo horjeednaa waana cambaaraynaa xagjirnimada iyo maxaan idhahdaa iyo dilka loo geysto falalka dilka loo geysto dadka shicibka meel doonaan baa joogaan bubi waana ka tacsiyadeynaa dadkii go-aankan wuxuu ka dambeeyaa wixii aanu aragnay in tahay danta somaliland ku dayasho maaha cidina cadaadis naguma hayso